kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada hawada inaga daawanaya oo kusoo dhawaada barnaamijkii raadraac waxaan ahay sugaal macalin maxamuud waxaad barnaamijka ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waad naga dhageysanaysaan sidoo kale waxaad nagala socotaan mareegyada baraha bulshada aynu ku leenahay barnaamijkan raadraac oo alaaba daawadayaal aynu ku dabagalno dhacdooyin wareedyada ugu waaweyn ee aan wararka idinkugu baahino ayaa haddii allaha awooda sare leh ogolaado qodobada ama aan kaga hadli doono ama aan idinkugu soo gudbin doono caawa waxaa guud ahaan noqon doonaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shaacisay xilliga la qabanayo imtixaanaadka fasalka 8aad iyo 12aad sidoo kale waxaa la shaaciyay goobaha waxbarashada xilliga dib loo furi doono COVID-19 kadib waxaan ku falanqeyn doonaa qaabka imtixaanaadkaas loo diyaarinayo goobaha ardaydu ay ku geli doonaan sida qaabka loo diyaarin doono iyo meelaha uu ka kala dhici doono guud ahaan waxaana barnaamijka iigu martay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Jaabiri sidoo kale waxaan ka hadli doonaa saameynta ardayda Soomaaliyeed oo ku yeeshay COVID-19 arday ayaa jiray online-ka wax ku sii baranayay intii ay xayiraaduhu jireen kuwa sida ay ula qabsadeen iyo kuwa kale ee aan helaynin qaabka ay ugu diyaarsan yihiin imtixaanaadka dawladdu ay qaadayso waxaa nagala jooga midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed xogayaha Cabdicasiis Cali Maxamed barnaamijka ayuu nagala qayb galayaa kulligiin kusoo dhawaada barnaamijka raadraac mudane wasiir bal faahfaahin naga sii imtixaanaadka aad shaaciseen in la qaadayo xilliga la qorsheynayo iyo waxay kala ahaan doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال iyo bahda SNTV injineeradii dhamaan waa idin salaamay waxaan kaloo halkaan ka salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aweys wanaagsan run ahaantii imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqday kadib wuxuu ka dambeeyay ogolaashihii ogolaadeen golaha wasiirada khamiistii in isu socodka dalka dib loo furo saad la socotay imtixaanka wuxuu ka dhici doona caasimada iyo dowlad goboleedyada marka insha Allah taala imtixaankii waxaan shaacinay in midka 8aadka oo si gaar ah u qaadi doonaan wasaaraddan ay gacan ka sii doonto dowlad goboleedyada midka form 4 kana ay qaadi doonto wasaaradda 8aadka wuxuu dhici doona 11 bisha form 4 kana wuxuu dhici doona 18 bisha waxaa xusid mudan burbur kadib markii uu horeysay caasimada iyo dowlad goboleedyada qaarkood ay hirgelin doonaan imtixaanka 8aadka ah oo ahmiyad gaar ah u leh markii loo fiiriyo waxbarashada waana dabcan sida la socoto imtixaanka mar hore uu dhacay ahayd sidoo qorsheysanaa bishii shanaad laakiin duruuftii timid arrimahan xanuunkan COVID-19 dartiis ayuu dib ugu dhacay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan ka sheegno imtixaankii inuu dhici doono haddii Ilaahay yiraahdo annagoo og duruufahaas caafimaad jira darteedna u diyaar garownay in aan mar walba ka taxadarno waxyaalaha keeni kara in xanuunka uu faafo ama uu mataqaana khatartiisa isii kororto marka insha Allah taala imtixaankii waa qaadi doona sanadkan hadduu yahay 8aadkii iyo hadduu yahay form 4ka way form 4ka mudane wasiir dadka Soomaaliyeed iyo ardayduba ayagoon la qabsanin sanooyinkii ugu dambeeyay dawladda ayaa imtixaanaadkooda qaadaysa ardayda dugsiyada sare muxuu kaga duwanaan doonaa 8aadka oo markii ugu horeysay asagana dawladdu ay qorsheynayso inay qabato waa su'aal aad u wanaagsan 8aadku wuxuu kaga duwanaan doonaa sida la socotay su'aalow sanadkii la soo dhaafay waa sanadkii ugu horeeyay aan hirgelinay manhajkii fasalka koowaad ilaa fasalka 8aad sida la socota burburka kadib waxayna mataana siisay in ardayda ay haystaan fursad ay sanadkan kaga qayb qaataan imtixaanka maxaa yeelay marka hore wadanka waxa ka jira manhaj kala duwan iyo muqarraraad kala duwan kaas oo runtii adkayd marka qaarkood in ay ardayda imtixaan laga qaado midaysan laakiin sanadkan maadaama sanadkii hore aan soo dhaqangelinay manhajkii oo 8aadka ahaa sanadkan waxaan aad ugu faraxsanahay ardayda inay kaga qayb qaadan doonaan imtixaankii manhajkii dawladda kaas oo ahaa mid aan dhaqan gelinay buugtiisana runtii aan qaybinay gaarsiinay dhamaan dowlad goboleedyada iyo caasimada intooda badan marka ahmiyadda gaarka u leeyahay waxay tahay ardaydii oo manhajkii dawladda ay wax ku soo bartay sanadna soo dhiganayay yaa runtii imtixaanka laga qaadi doona anagoo og duruufihii la soo maray waxa kaliya ardayda saaciideyna waxay ahayd ayagoo haystay buugagtii manhajka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waayahay tira ahaan maxaa farqiga u dhaxeeya marka ardayda dugsiyada dhexe iyo kuwa dugsiyada sare imtixaanaadkooda geli doona farqiga xoogo fiican baa u dhaxeeya dabcan ardayda mar walba waxa badan dugsiyada dhexe geli doona waxa ka yar ardayda secondary geli doonta sida la socotana
mar walba waxaa kala badan ardaydeena laga soo bilaabo grade 1 ardayda mar walba waa badan yihiin ilaa ay kor la sii aado waxay usii yaraanayaan kor dabcan laakiin maadaama markii u horeysay burur kadib la dhaqangelinayo sideedaadka waa dareemi kartaa caqabado badan ayaa jira ayadoo waxbarashada caqabado badan ay ka jiraan oo xataa marka loo fiiriyo aadida iskuulada ardayda aad u yar yihiin marka loo fiiriyo dabcan wadamada kale oo anaga inta badan hadda kormeerada aan sameynay iyo diiwaangelimadii la sameeyay mar walba waxaad ogtahay in ardaydeena waxbarashada aad u yar yihiin caasimada marka laga soo qaado kale waxa aada 12% ardayda waxbarashada gaartay ama ubadka waxbarashada gaaray marka waa dareemi kartaa mar walba ardaydeena inay mataqaanaa ay ka hooseeyaan ardayda loo baahnaa laakiin waxaan ku rajo weynahay oo tan ayna tusinaysaa in arday badan ay runtii guryaha joogaan oo ahayd inay iskuulada aadaan numberka ma badan marka loo fiiriyo dabcan dal ahaan marka loo fiiriyo numberka aad uma u badna waana ka dareemaysaa arday imtixaanka fadhiisanaysa in runtii ubad badan oo da'dii waxbarashada gaar inay guryaha joogaan marka tirada fasalka 8aad u fadhiisanaysa sabtiga 11 luuliyo maxay leeyihiin waa 39800 oo arday maamul goboleedyada iyo caasimada haba u badnaadeen caasimada waayahay goobaha u diyaariseen imtixaanaadka in lagu qaado maxay kaga duwan yihiin sanadadii hore kuwii lagu qaadi jiray maxaase qorshe ah oo baleen oo loo dejiyay maadaama covid-19 uu jiray ardaydu diyaar garowgooda uu iska yar yahay xaalado adag wadanka dhan uu soo maro kala xirnaashiya runtii waa adaa sheegay goobaha way ka doonaan doonaan goobihii sanadka hore way ka badnaan doonaan marka loo fiiriyo waxaa yeelay waxaan tixgelinaynaa oo aan fulinaynaa awaamirtii ka timid wasaaradda caafimaadka oo ahaa in ardayda la kala fogeeyo in mataqaanaa afduubkii ardayda loo sameeyo ama mataqaanaa maaska la isticmaalo in gloveska la isticmaalo in agabkii kale loogu talagalay oo fayadhowrkii la isticmaalo sida mataqaanaa shaambadii gacmo dhaqa iyo sanitizerski ama waxyaalaha kale oo mataqaanaa jeermiska dilayay marka annagoo taasoo dhinta gelinayna way ka duwanaan doontaa waxaa kaloo sanadkan la socon doono tiim wacyigelin ayagana ka shaqayn doona oo goobaha imtixaanka lagu qaaday mar walba wacyigelin doona oo runtii ag taagnaan doona waadna og tahay dadka bini'aadanka way loosha dhow yihiin laakiin waxaan ugu talagalnay meeshii aan social distancing inay ilaaliyaan shaqadooda inay noqoto in ardada wacyigeliyaan in gacmaha la dhaqda xasuusiyaan in arrimahaas oo dhan ay ka shaqeeyaan marka wuu ka doonaan doonaa marka loo fiiriyo annagoo mar walba taxadar dheeri aan muujinayna una diyaarinay shaqaale gaara ama koox gaara oo ka socota wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada inay ka shaqeeyaan wacyigelinta caafimaadka oo ah tan ugu muhiimsan maxaa yeelay annaga ahmiyad gaar noo leedahay in ardaydii qiimeyntooda la sameeyo maadaama sanad dugsiyeed kale uu bilaabanayo dhanka kalena waxaa ahmiyad gaara noo leh dabcan in bulshadina caafimaad ay qabto ardayda inay ayagoo caafimaad qaba ay mataqaanaa waxbarashadoodii ay sii wataan marka yaa idinka saacidaya marka loo eego waxaa jiray culeysyo badan oo xagga kormeerayaasha waxba imtixaanaadka la soconaya qaybinta imtixaanaadka in juhdi badan iyo goobaha lagu qabanayay oo goboladoo dhan ahaa marka loo eego culeyskaas uu jiro hadda covid-19 iyo ilaalintiisa ayadana gaar ay tahay yaa idinka saacidaya wasaaradda waxbarashada maanta garab u ah oo aad wax nooga sheegi kartaa horta waxaan rabaa inaan halkan ka sheego wasaaradda waxbarashada budgetka imtixaanaadka wuxuu ka imaan doonaa miisaaniyadda dowladda oo runtii aan aad ugu faraxsannahay in mar ka dambe dowladnimadeena ay soo xogeysanayso waayadii hore ama sanadii hore waxaa caawin jiray European Unionka walow sanadkan ay weli sii caawin doonaan fasalada 8aad imtixaankiisa oo wax badan aysan ku lahayn laakiin miisaaniyadda imtixaanka waxay ka imaan doontaa miisaaniyadda dowladda oo macnaheedu yahay wax kasta oo qarashka imtixaanaadka ku baxaya inta badan waxaa bixin doona dowladda waxaa kaloo ka qayb qaadan doona iyagana sida ay si lamid ah dalada waxbarashada iyo waalidiinta oo iyagana aan wax badan oo aan macno badan lahayn ama wax yar oo contribution ku yeelan doona maadaama budgetka imtixaanka uu aad u badan yahay laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego miisaaniyadda inteeda badan waxaa mataqaanaa ay ka imaan doontaa wasaaradda maaliyadda iyo budgetka dowladda hadduu ilaahay yiraahdo mudan wasiir kugu soo laabanaya aad u mahadsan tahay soo dhawaad Cabdicasiis Cali Maxamed xogayaha waxaana la jooga daawadayaal iyo dhageystayaal sidaan barnaamijka u dhicisa bidin kugu sheegay midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed saameynta covid-19 ardayda Soomaaliyeed uu ku yeeshay maxaad noogu sheegi kartaa Cabdi su'aal waa mahadsan tahay arrinta covid-19 waxay arrin international ah oo international disaster aan dhihi karo waxaan ka wadaa macna musiibo adduunka dhan ka dhacday waxbarashadii aan musaameyn waxay saameysay nidaamkii nolosha adduunyada dhan ardayda dhaqaalo ardayda bulshada waxbarashada caafimaadka kulli ardayda Soomaaliyeed oo runtii ah dhalinyaro wax baranaya oo waqti ku jiray noloshooda qaybtii wax ka baranayeen oo waqti
halkii saac ku dhumay ay tahay mustaqbalkooda wax ka dhumaayo ayuu COVID-19 imaaday. COVID-19 markuu yimaaday runtii waxay noqotay wax ardayda Soomaaliyeed caqabad weyn ku noqda. wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda waxbarashada prime ministerka go'aan ay gaareen in duruufaha lagu jiray khatarta ka imaan karta awgeed mataqaanaa sida la socono ay joojiyeen. marka waxaa soo baxday tiknoolajiyada laga faa'iideysanayo runtii jaamacado badan iyo iskuullada qaar oo qayb weyn inta ardayda tababaray la yimaaday initiative in la isticmaalo muxuu ahaay tiknoolajiyada ardayda looga faa'iido. runtii qof dhalinyaro oo muxuu ahaay waqtiga iskuulka aada ama jaamacadda aan aadayn ku dhex fadhi waa dareemi kartaa waxa uu dareemayo oo caajis waqtigaasna oo kaga faa'iideysana ama meel cidloo kaga baxa. marka ardayda laba qaab anagu ay gelinayna midowga ardayda qaranka ah in institutions dadka wax barayayna ay anu u mahadcelinayno oo ardayda leheeno muxuu ahaay dadka aada qaar waxay sameynayaan inta online ka galaan online-ka inta badan ma jiro wax oo lagu fiirinayo ma arki kartid cashirka macalinka hadduu bixinaya lecture-ka waa meel iska dhigta telefonka ama computer-ka. waxaan markas ku celgelinayna inay tahay waxaan waqtiga cashirkii lecture-kii la rabo inay qaataan inuu yahay inay presentation macalinka dhiba ka faa'iidaystaan. midda kale oo ah ardayda iskuulaadka aada ma helin muxuu ah access ma helin arrintaas. marka ayagana waxaan ku celgelinaynay in waalidka aqoonta leh oo wax bartay textbook yaala in la akhriyo ardayda muxuu loo sharxo ardaydana ayaga ruuxoodan maadaama dugsi dhexoo kale textbookiisa Soomaaliya ku qoraya in akhriyaan ardaydu taasaa xoog saaran. maadaama hadda imtixaanaadkii la qaadayo ardaydii dhexe iyo saraba la qorsheeyey in la diyaariyo imtixaanka loo diyaargaroobayo diyaargarow badanna uusan jirin waxaa kala yaraa dadka online-ka wax ku hela oo ka faa'iideysanayay intii iskuulaadku xirnaayeen in waxbarashadooda ama qaybo kamid ay helaan ama ay si dhammaystiran online ugu helaan kuwa kalaan helin oo aan waxbarashada saas u heli jirin. diyaargarowga marka loo eego ardayda bal maxaa nooga sheegi kartaa arrinta imtixaanaadka hadda imtixaanaad galayo ka duwan ardayda muxuu ahaay ama jaamacad dhiganaya ama iskuul dhiganaya ama online wax baranaya. arday imtixaanaadka dhiganaya waxaa ognahay la 3 bil ama 2 bil ka hor dugsiyeedkan mar walba mataqaana arday wax soo bartay iskuullada ardayda ugu badan way dhameeyeen buugagta waxa u dhibnaa kaliya diyaargarowga ahay. marka ardayda fonforka culays badan kama haysan baay buugagtina waa haysteen galas ugu dambeeyna waxa waa cashar inta badan waa qaateen in ay u dadaalaan wax akhriya kaliya ay hal caqabad haysta ayaga taas oo ah waxyaabo moral ah qof ardayga imtixaanka xilliga gal aan aqoon waa qof taagan ama tool wax kuma kala wuxuu fahmi karin xilli alla xilligii mataqaana diyaargaroobi lahaa hadii lagu yiraahdo imtixaan galaysa oo aad xilliga galaysa waxa wareer mataqaana ku keentay waan dareemin dawladda runtii mataqaana waxaas ee badbaadada ardayga iyo dadka Soomaaliyeed badbaadinayaan ee tahay laakiin haddana waxay ka caqabad ardayda ku maantay wajah wareer runtii wax ay sugayeen waxay warkii muxuu ah wasiirka uu sheegay maalin oo waqtiga maanta ilaa shalay waxa u maleynaa ardayda Soomaaliyeed inay si buugaag ka kicin waxaan keenaa waqtiga loo sheegay. marka caqabad xoog leh waxay ka imaatay ardaygii fonforka imtixaanka diyaargarowga loo galo oo aan aqoon xilliga imtixaan galay. marka wixii intuu ku wareero ka dambe wuxuu yiri waxa iska dhaafaa ma akhrinayo ilaa xilliga imtixaan galay ma aqaanin. marka laakiin waa gelintaas iyo in loo baahan yahay ardayda marka soo diyaariyo iyo anagu wasaaradda marka soo diinayno maxaa ardayda xagee wax marayaan taasna waxay ka tarjumayna ardayda imtixaana hadda waqti fiican haystaan muddo 18 maalmood waxay ku camal ay haystaan oo runtii ku taari karaan. waan aaminsan ardayda Soomaaliyeed juhdi bixinayo laga yaabo ardayda subaxna soo qoraan iskuulka intuu ka soo laabanayo haddana muxuu ahaay duruufta ku dhooliyna ka warqabtid juhdiga dowladda bixinaysa runtii waa kaga madcelinayna. marka taas ardayda imtixaanaadka galayo saameyn weyn kuma yeelan waxyaaba online-ka lahaa. waa sidaad Casiis mudane wasiir COVID-19 marka loo eego wali saameyntiisa way jirtaayo wali dad soo ridinaya culayskiisa waa taagan yahay adduunka oo dhan wali xalkiisa lama helin. ma la isdhihi karayaa iyadoo haatan waxyaraada ay jireen oo laga qaadayo toddobaadkan xukuumaddu ku dhawaaqday in la furi doono gobolada iyo socdaalkooda in aad soo dedejiseen imtixaanaadka oo ardayda waqti ay ka faa'iideystaan oo isku furnaanshaha marka loo eego ay fursado
galaan ma jirin in la soo dedejiyay xilliga imtixaanka in la qaado runtii saa la socoto annaga sanadka oo noo kala qaybsan yahay xillina waa xilli wax la barto xilli arday xilli la qiimeeyo haddana xilligii waxbarashada ay bilaaban lahayd sanad dugsiyeedka wuxuu ku dhisan yahay waqti jadwalaysan oo wax lagu barto waxaan hadda ku qasbanaanay maadaama la furay sanad dugsiyeedkan xilligiisiba uu taagan yahay in imtixaankii la qaado maxaa yeelay ardayga sideedaadka hadda rabay inuu ka qalin jabiyo ama imtixaankii wuxuu isu diyaarinaya inuu aado secondarygii taqaanay fasalka sagaalaad si marka taa loo helo waxaan ku qasbanahay in la sameeyo qiimeynta ardayda marka waxaan isleeyahay waqtigan hadda qabanay waa waqti munaasab ah oo aan isleenahay ardaydina way ka gaari karaan waqti inay diyaar garoobaan tan kale oo muhiimka waxay tahay wasaaradda waxay mar walba samaysaa barnaamij la yiraahdo anoo sii tixraacay hadalka Cabdicasiis nakhtiin barnaamij la yiraahdo Astan TV ka baxa oo macnaheedu yahay in ardayda muraajaca loogu sameynayo jabtarada iyo mataqaanaa meelaha casharada dib loogu masaynayo barnaamijkaasna insha Allah taala ardaydu wuxuu ka caawin doonaa inay xataa fahmaan formulooyinka qaarkood waxyaalaha qaarkood iyadoo loo dulmarayo dhammaan casharada iyo meelaha muhiimka ah marka runtii caqabadan waa caqabad runtii taagan oo runtii caalamka oo dhan uu nala qabo waana iska imtixaan rabbaani oo aan isleeyahay marka qaarkood bini aadanka oo iska daciifa laakiin dhanka kale marka la fiiriyana wax kasta wax waa laga bartaa waxa laga maarmaan ah in aysan ardaydan mustaqbalkooda aysan mugdi gelin ay fasaladooda sii wataan jaamacadaha dalka furmaya ayaga laftooda u baahan ardaydii fasalada ka qalin jabiyay ama secondaryada ka qalin jabiyay inay ayaga laftooda jaamacadaha bilaabaan marka dabcan adduunkan la qabnaa saan hadda wax u wadna lafteena annaga waa un si hadda mataqaanaa aan ula qabno bulshada kale caalamka maxaa yeelay waxa go'aan lagu gaaray xanuunkan maadaama saameyntiisii uu la sii jirayo una jiri doono inta laga helayo talaal xanuunkii ama waxyaalo looga hortago in noloshii dib u bilaabato taasaana qayb ka nahay anaga ka wasaarad ahaan wadamada intooda badan runtii way bilaabeen hore u fureen oo wadamo badan ba hadda imtixaanaadka hore u qaaday annagana hadda markaan fiirino duruufta hadda ku jirno sida aan samayn karno waa sida hadda aan ku talagalnay kaliya waxaan rabaa fariinta inaan kaga faa'iideysto mar walba in muhiim ay tahay caafimaadka iyo badqabka ardayga iyo waalidka iyo qof walba muwaadin in la ilaaliyo taas ayaa mar walba waxay saacidaysaa in shaqooyinka aan rabno in noo fududeyso marka runtii wacyigelintana waa badin doonaa idinkana waxaan rabnaa haddaad tihiin TV-ga qaranka iyo wariyaashii inaad mar walba ka qayb qaadataan arrinta ayada waan rajaynaynaa inaad nagala qayb qaadan doontaan waayahay fursadaha ardayda helaysay muuqaal baahiyayaasha aad ugu talagasheen ardayda in muraajaco loogu sameeyo dadka aan heli karin gobolada ku dhaqan iyo meelaha u diyaariseen ayaga laftirkooda si jaaniska kuwan ay heleen ay ku helaan maamul goboleedyada ma kala shaqeynaysaan arrintan waa kala shaqeynaynay runtii waxaan mar walba isku dayeynay qaab walba ardayda ay wax ku gaari karaan inaan ku gaarsiino meelaha qaarkood aysan gaari karin inaan u raadina qaab kale sida raadiyo iyo waxyaalahaas loo raadiyo ku gaaraan waxaan kaloo xiriir dhow la lahayn daladaha waxbarashada maamulada waxbarashada ee dowlad goboleedyada iyo runtii mar walba waxaan ka wada shaqeynayna waxay ahayd in ardaydan maadaama xanuunkan uu jiro fursad loo sameeyo in muraajaca loo sameeyo in ardaydii waalidiintii waxaa xusid mudan raba halkan inaan kaga mahadceliyo daladaha waxbarashada iyo maamulka waxbarashada dowlad goboleedyada ilaa heer maamulayaal ilaa heer mataqaanaaye kormeerayaal waxaan mar walba ka wada shaqeynaynay intii hadda xanuunkan lagu jiray iyo intii xanuunka uu soo bilowday mar walba iyo saacad walba sidii ardaydaas gacanta loogu hayn lahaa loo wacyigelin lahaa hawshoodan looga warqabi lahaa marka hadda waxaan ku dhawaaqnay waqti imtixaanka laakiin diyaar garowga imtixaanka iyo howlihiisa iyo ka warqabkiisa iyo diyaar garowgiisa waxaan soo bilownay xilligii aan ugu talagalay imtixaanka inuu dhaco marna ma aan joojin laakiin waxa aan joojinay isu imaatankii iyo dadkii inuu isu yimaadaan laakiin qaab kale oo digital oo zoom ahaan iyo mataqaanaa qaab kale oo technology ah yaa lagu wada shaqeynaya waayahay macallimiin ma jiraan aad u diyaariseen hadda iskaashiwaalka imtixaanaadka ay u bixi doonaan casharada si usoo kala hormari doonaan aad u diyaariseen inay fariimo ahaan sii gaarsiiyaan ardayda ama si muuqaal ahaan u gaarsiin doona qaabka uu noqon doono imtixaanka in loo galo laftirkeeda saan kuu sheegayba barnaamijle waxaa jira nakhtiin oo runtii ay iska kaashadeen dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon-yahana iyo TV-yadaas haddaan kuu sheegay barnaamijkaasaana wuxuu sahli doonaa in ardayda sanadka horena waa sameynay oo TV-ga qaranku ka baxay maaqayna la socotaan in kale sanadkaana waa rajeynaa insha Allah taala in barnaamijkaas loogu faahfaahiyo dabcan ardayga su'aalo loogama jawaabi doono lama dhihi doono su'aalaha imtixaanku imaan doona laakiin ardayda waxaa laga dhaadhicin doonaa qaabka imtixaanaadka sida imtixaan guud u yahay muraajac waa loo sameynaya iyadoo mar walba la tusin doono tusaalooyin wanaagsan oo runtii imtixaanaadka hore ku jiray iyo waxyaalahaas loo soo bandhigi doono marka waxaan aad u rajeynayaa hadduu ilaahay yiraahdo anoo ku kalsoon waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulayaasha iyo qof walba runtii waxbarashada dalkan jecel
inay ka qayb qaadan doonaan wacyigelintaasi sii socon doonta hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo in ardayda imtixaanka u fududaan doono ilaahay idinkiisa insha Allah tacaala asaasaan wada rajaynaynaa dhammaanteen mudan wasiir dib u dhacyo ku yimid sanadkii horeetay imtixaanaadka xilliga loogu talagalay inay dhacaan ayaa jiray oo la xiriiray in imtixaanaadkii qaarkiis lala baxay iyo la bixiyay oo ardayda soo kama cabsanaysaan maadaama 2 toddobaad hadda oo isxiga aad qabanaysaan maxaad si qorshaha ugu talagasheen arrintaas in lagu xakameeyo waa mahadsantahay shukran run ahaantii dabcan annaga diyaar garowga imtixaanka annagoo ka baranay waxyaalihii hore u dhacay runtii aad ayaan ugu diyaar garownay saan hadda kuu sheegayna waqtiga imtixaankan hadda sheegay laakiin diyaar garowga imtixaanka hore u soo socday inaan u diyaar garowno waxaa nasiib darro ahayd wixii sanadka hore dhacay laakiin waxaa sidaa isi lamida dhacay in wasaaradda ay jawaab degdeg ka bixisay qolihii waxaa geystayna aysan ku faa'iidin maxaa yeelay waa markii u horreysay inta imtixaan la qaaday imtixaanka gebi ahaanba la kansalay lagu celiyay taa lafteeda waxay ahayd 10 la siiyey dadka raba inay mataqaanaa si khaldan wax ku raadiyaan runtii waa u diyaar garownay waxaa jira habraacyo adag oo loo sameeyay imtixaanka lagu ilaalin doono hadduu ilaahay yiraahdo waxaan mar labaad rabaa halka inaan ka sheego qof walba isku daya imtixaanka inuu ku xadgudbo hadduu ahaan lahaa kormeere iyo hadduu ahaan lahaa qof si khaldan wax u raadinayo in wadada sanadka hore mid ka sii adag amari doono dadka arrimahaas runtii caadaystay oo raba inay khalkhaliyaan imtixaankana insha Allah tacaala inaan sharciga kuwii haddana sharciga la marsiiyay kuwa soo socdana sharciga la marsiin doono hadduu ilaahay yiraahdo dabcan caqabadaha imtixaanka soo wajaha wadan ahaan anaga kaliya naguma koobna adduunka waa runtii waa ogtahay wadamo badan oo anaga naga technology badan yaa runtii isku daya yaa lala dagaalamaa waxaasna waxay qayb ka tahay in dabcan waxay qayb ka tahay dowladnimada iyo jiritaanka dalka lala dagaalamayo maxaa yeelay imtixaanka waa mustaqbalka caruurteena oo aan rabno inaan ogaano lagu qiimeeyo qof kastoo marka isku daya in uu carqaladeyn ku sameeyo taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu diidan yahay ubaxaas dalka u soo baxay horumarkiisa inuu diidan yahay marka waxaan rabaa inaan fariinteena ay noqoto yaan ما تقاناي للسياسيين يعني لو حد جود بين عروض مستقبل إن أي نقدان أو حاس ذلك أوليه إن فرصة هلان إن معناه هذا يتقفل بو أنا جنا جميدا مواد كستو أنا جنا جميدا وحده أنا هذا إنه مسؤولية جار إسكسار سيد أوقف قادن له سيد أشياء تيبا وحبال لجبرتي إن وحلا هذا مدن وزير قابك امتحانك أو أبحي سنة كهرد بدأ للسي كدبنا عاد هالكي كسي ودين محنوق شيء كرتا قابك فرصة وقاب كلام هين طبعا امتحانك صار له صعود وحكى الشقية كرميريال يدد أمني الله حصار امتحانك إني إلى عليان وشخص كم إذا دتكي امتحانك اللي جوا أمني أيو شغل ده امتحانك وقبح تاس يعني كانت امتحانك ونجيب أهم بينان meesha ka saarno aan tirtirno si aan imtixaanka la marka u soo saarno taa waxay ahayd marka jawaab qof walba la siinayo hadii xataa imtixaankan hadda aan ku talagalnay lagu xadgudbo macnaheedu waxay ka dhigantay wasaaradda mar walba waxa u diyaarsan qorshihii labaad oo imtixaanka hadii xataa mar labaad lagu xadgudbo qorshe saddex jiro marka macnaheedu waxay tahay annaga waxaan rabnaa qof walba inuu ku raadiyo si xaq ah in uu wax ku helo waxaan aad ugu rajo weynahay shaqaalaha iyo dadkan u xil saarnay imtixaankan amaanadooda iyo wanaagooda haddana saas ay tahay waxa yaala habraacyo iyo system iyo process iyo nidaamyo aan ugu talagalnay inaan ku ilaalino marba halka inaan ka sheego wax walba oo mataqaana xiriirka la xiriira laakiin waxaan rabaa kaliya inaan ka sheego imtixaankaas diyaar garowgiisa in aad loo adkeeyay in ka qayb qaadan doona ciidamada qalabka sida ciidamada amniga iyo qof walba aan u aragnay imtixaankaas ilaalintiisa inuu ka qayb noqdo marka kaliya waxa muhiim ah in dadka ay fahmaan war waxaan imtixaanka la leeyahay ma aha wax ardayga lagu ciqaabayo ma aha ardayga wax lagu xadgudbay laakiin kaliya waxaan rabnaa qudraadka ama awoodda ardaygaas uu leeyahay iyo waxa uu bartay inaan ku qiimeeyno kadibna uu ardayga hore u sii socdo oo hadduu fanfoor ahaana jaamacad uu sii aado haddii uu sideedaad ahaana fasalka sagaalaad u gudbo marka annaga ka wasaarad ahaan waa dadaalnay laakiin mas'uuliyadda waxaa laga rabaa qof walba muwaadin oo inuu xil saaro qof walba muwaadin ah inuu ogaado waxa aan ilaalinayno aan ka shaqaynayno inay yihiin mustaqbal dalkan mustaqbalkiisa waa ardaydeena hadda iskuulada dhigata maxaa yeelay ayaga way dadka hadda arab inaan mustaqbalka u hagaajino marka qof walba annaga naga mid ah oo ama waarida ama macallina ama kormeera ah ama hadduu ilaahay ku roon yahay ciidana ama muwaadin caadi ah waxa mas'uuliyadda ka saarata inay tahay inuu ogaado ubadkaas inuu waarid u yahay waaridkaasna laga rabo inuu waaridnimada ilaaliyo oo lala shaqeeyo ardaydaas loo fududeeyo imtixaankaas si wanaagsan inuu galan aan lagu dhiirigelin ardayga inuu si qaldan wax ku raadiyo maxaa yeelay taas waxay dilaysaa kalsooniga ardaygaas iyo dilaysaa iyo mustaqbalkiisa inuu noqdo qof macno u leh marka annaga ka wasaaradahan waan diyaar garownay laakiin waxaan gacan ka rabnaa sidaa isi lamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ayagana fahmaan ardayga mustaqbalkiisa in mataqaanaa la ilaaliyo
jeclaan inaan ku daro hadalka wasiirka arday ahaan aniga meesha aan fadhiya arday ardayda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego runtii markaad tahay arday oo raba in mustaqbal arday wuxuu ka fikiraa inuu jaamacad ka baxo inuu shaqo helo inuu meel sare gaaro ka fikiraa lama mid marka dadka oo macnaa planka hoose yeesho ama 2 sano ama 3 sano ka fikiraa ma qof wuxuu ka fikiraa mustaqbal ka fikiraa ardayda Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta wadankan waxa uu sugayo oo 30 sano ama 40 sano kadib la rabo inay maamulaan anaga sida la sheego engineer soo qish ku soo baxay guriga dhisayo waa guri soo dumay wiil oo political science bartay oo qaab ku soo bartay ku soo celina meesha 30 sano wadankan ka dhintay annaga dhalinyaro ah annaga waxaan rabnaa marka inaan bedelno meeshii dadkii hore ay gaarsiiyeen oo maanta xamar dhexdeeda ognahay in guryaha qaar dadku qaar ay degan yihiin inay yihiin guryo dad islaamka laga dhac oo xoog lagu haysto waxaasna waxaa keenay personality xun iyo akhlaaq xumada iyo waxaas keenay waxaan jeclaan lahay in ardayda Soomaaliyeed fahmaan in waxaan ay loo qiimeeyaan inay dadaalaan waqti wax haystaan dadaalkooduna ma cilad soo dhacay inaan musuqmaasuq wax lagu raadin waayahay Cabdicasiis haddii aan ka tagin seebay idin saameysay arrintii la xiriirtay in imtixaanaadkii la bixiyay ardayda see dareen ahaan see waxaan baareen see uga falceliseen maxaad aragti ahaan ama fikrado ah oo ku beeriseen wasaaradda iyo dadaalka ay ugu jirtay in imtixaanaadka dib loo cusboonaysiiyo anaga marka aan maqalnay imtixaankii wasiirku habeenkii u hadlay kahor waxba iska jiray oo group social media maqaamada groups waxba isku diray ilaa wax san wili ku kalsooneen inay bada amsan laakiin markuu wasiirka habeenkii u hadlay uu yiri imtixaanka waa baabiinay inta weyn aan soo gashay aad u naxnay dhalinyaro qaban dadaalkiisa wax soo barnaysa ku jirta dhalinyarada qofku xumeeyo qof xumeeyo waa dareemi kartaa ardayda muxuu ahaa cadfadii iyo inkastoo Ramadaan hadan inay banaan bixin shucuurtooda muujiyeen wax ceebna ma qof bini'aadamka ma ku oo dadaal badan bixiyo in inkastoo akhlaaq xumo kale ay iska jirto anigu TV-gan imaaday waa ka hadlay waxa uu sheegay ilaa maanta ku jirta cadaaladaas muxuu ahaa telefishinka waxa uu sheegay ardayda Soomaaliyeed haddii qisbaxay oo wax dhaceen in loo baahan yahay wax la soco arday qis ku soo baxay arday kale inay isku mid noqdaan macquul ma mana la kala saari karo haddii warqado la wada qeybiyo dadka la wada qeybiyo yaa marka wax akhriyaas wax akhriyaa yaa kala qeyb grade lagu siinayo loo sax soo ku noqonayo mustaqbal leeyahay jaamacad taal raba heerka san gaaran raba macquul ma noqonaysa marka waxa arday u sheegay in isdejiyaan waqti ka dhumay waxay akhriyaan dadka akhriyaan isku kalsoonaadaan waxaan inay wax mustaqbalka lagu hagaajinayo wax laga fikiraa waxa waaye ardayda marka wax bartaan grade kala qaataan scholarship qaab loo qaybnaa arday hore jaamacad qayb ku tagi lahay kan xulay kan fiican si loo kala qoonsana marka ku dhirgelin waa dhaanay isdejiye waxaan kaloo ka hadlaa waxay xilligaas ilaa hadda taaragna ka hadlo waxta kulkalaam ku zaada xoog oo saartaa inuu madceli arday wax bartay dugsiga ka soo baxay geed jibnaa meel ka tuuraa كتب أنا وحي قاب خلاص برا كت قاب خلاص فديدال كهد وزاد وتكسي سريع من هذا وتصار ثنا وحي واحد اللي بدي له وي وما سنت عبد العزيز من وزير إسلام كاس نقول جوجين حق دابعاد قرمة قرشين إنسان دابعاد إن الله الامتحانات كان هالكيس وكحفظين هي وقت كديار إنسان وقت ربطان إن معلم منهج ك أما 10 مالين امتحان كذا القاضي اللي قصوا صاروا مساء أرضي ذو حفظت وهي الدوران إن إسكاش والك تضبط كبوضة هيستان وحي يجلي لها أيين iyo imtixaanaadkii xogihiisa su'aal waa mahadsan tahay imtixaanka meesha lagu xigdiyo oo lagu diyaariyo waa meel wasaaradda waxbarashada ay u cayintay oo runtii aan ognahay oo meel gaar ah loogu talagalay oo sanad walba aan ku diyaarino isla markaasna ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga ama booliiska taas waa taas dabcan nidaamka imtixaanka aan u diyaarino iyo sida loo diyaariyo ardayda sida loo gaaro waa habraacyo runtii aan mar walba u marsiino ama qaabka runtii wasaaradaha aan kula xiriirno ama ay ogyihiin waxa hadda ardayda ogyihiin waxa waa imtixaanka sideedaad in ay 11 bisha geli doonaan goobihii ay ku geli lahaayeen la diyaariyay ay ogyihiin arday walba meesha ay ku galayso magacyada lagu dejinayo ama liiska la dhigay doona baradooda ay haystaan kaararka imtixaanka ay ku geli lahaayeen loo sii qaybin doono kor ay sii heli doonaan agabka caafimaad oo imtixaanka ay ku geli lahaayeen lagu soo diyaarin doono meesha marka waxaasoo dhan saan kuu sheegay
waxaa ka shaqaynaya dad badan oo loo macnaha loo diyaariyay loo tababaray sidaa isi la mid ah dadka imtixaan ka shaqeeya waa dad aan marka horeba tababar u sameeyno oo loo diyaariyay haddii ahaan lahayn kuwa ka shaqeynaya diyaarinta ama daabacadda haddii ahaan lahayn kuwa ka shaqeynaya ilaalinta imtixaanka haddii ahaan lahayn kuwa ka shaqeynaya logistikada ama diyaarinta agabka imtixaanka loogu talagalay marka waxaasoo dhan wax runtii aan diyaarinay oo loogu talagalay weeye waxaan isleeyahay runtii waxaa mar walba sharaf iyo farxad noo ah in dalkeena uu soo kabanayo mar ka dambeysa aan kor usii socono imtixaanka mar ka dambeeya qualitygiisana kor usii socdaa waxaan rajaynaynaa marka hadduu ilaah yiraahdo in sanadkaana sideedaadka imtixaan kusoo biiray in runtii ay wax fiican noqon doonto waxaa xusid mudan marka annaga maadaama dalka uu federaal yahay ka wasaaradda roolkeeda sideedaadka inta badan waa un rool oo caawin ah ka warqab ah la diyaarin ah xagga farsamada wax walba kala shaqayn ah laakiin roolka waxaa qaata markaas maamulada oo dalka ka jira ayaga iyo mandatekooda ay tahay inay ka shaqeeyaan sideedaadka oo ay diyaariyaan gobolka banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay in runtii gudoomiye cumar iyo agaasinka waxbarashada oo mataqaanaa ay hogaamin u tahay basma iyo cabdiraxmaan oo agaasimaha guud waxbarashada gobolka inay sanadkan u diyaar garoobeen in imtixaanka sideedaadka qaadaan annaga wasaarad ahaan inaan barataarno la shaqeyno runtii diyaar garoow xoog lahay galeen waxaan rajaynayaa sanad soo socdana in iyaga si kama dambaysa ula wareegi doonaan oo macnaheedu yahay sideedaadka imtixaanka sideedaadka annaga ka wasaarad ahaan heer federaal waxaan mar walba siin doonaa support iyo taageero maamulada iyo gobolka banaadir inay iyaga imtixaanka hogaamiyaan inay ayaga ka shaqeeyaan si ay u bartaan oo la wareegaan maxaa yeelay annaga hadafka ugu dambeeya aan leenahay waxay tahay waxbarashada in la daadijiya yacni in heer gobol heer degmo waxbarashada inay daadto heer state heer gobol heer degmo marka waxaa loo baahan sida maamuladeena looga baahan inay daadegaan oo caasimadan hadda joognaa waxaa la rabaa in ilaa gobol iyo xaafad marwalba sii daadto sidaa isi la midan dowlad goboleed waxaa la rabaa ayaga inay daadejiyaan waxbarashada inay daadejiyaan yacni arrimihii gudaha inay daadejiyaan marka annaga waxaan ku guuleysanay dowlad goboleedyada kala shaqeynaa in sideedaadka in ayaga ay qaadaan aan u tababarnay u diyaarinay sidaa isi la midan waxbarashada inteeda kalena ay sii daadejiyaan oo haddii ahaan degmooyinka haddii ahaan lahaayeen xaafadaha waxbarashada in la daadijiyo oo macnaheedu yahay waxbarashada iyo caafimaadka waxyaalaha asaasiga u ah markii laga hadlayo bulsho waa in meel walba ay gaartaa waxbarashada si ay u gaartana waa inay ka baxdaa qorshahan ah madax ka noolka maxaa yeelay maamuladeena hadda dalka jira uma guud ahaanba waxbarashadeena waxay kusoo kooban yihiin meelaha uu resourceka iyo imkaaniyaadka uu ka jiro annagana waxaan u baahannahay in waxbarashada ay ka gudubto meelaha oo imkaaniyaadka iska jirin meelaha gaariwaaga inay gaarto meelaha aysan laamiyada ka jirin meelaha reemiyiga ah inay gaarto annagoo og weli inaanan gaarin heerkii loo baahna oo hadda caasimada iyo dowlad goboleedyada meelaha inta badanba oo nambarka ardada waxbarashada aad u yaryahay haddana waxaa laga maarmaan inaan dhiirigelino meelahaas waxbarashada gaarin xoog saarno maxaa yeelay meelahan marka ugu yartahay qofku wax haysta iskuuluu helaa macallimiin baa la helaa laakiin meelo badan waxaa jira ilaa hadda waxbarashadeena aysan gaarin loona baahan yahay inaan xoogga saarno haddii ilaahay yidhaahdo mudane wasiir kaalinta shacabka ama muwaadinka soomaaliyeed kaga aadan fursadaha uu siin karo ama ugu fududeyn karo ardayga imtixaanaadka usoo degdegaya in goobtiisa waxbarasho soo gaaro ama imtixaanka uu ku galayo maxay tahay oo ay shacabka soomaaliyeed kaga qayb qaadan karaan imtixaankan wadajirka loo qaadayo in ay la wada fududeeyo waa su-aal aada u wanaagsan waxaan isleeyahay waa ka hadlay muwaadinka soomaaliyeed waajib ka saaran waxay tahay ardaygan soomaaliyeed in mar walba horta la garab istaago haddii ahaan lahayd haddii la caawin karo la qaadi karo meesha imtixaanka la geyn karo haddii wadooyinka loo fududeyn karo annaga ka dowlad ahaan mar walba waxaan ka dardaaranaa ciidamada amniga wadooyinka jooga ama amnigeena qaabilsan in maalmaha imtixaanaadka ay aada u fududeeyaan ardayda la shaqayntooda caawintooda garabgalkooda maxaa yeelay ardaygan waa mustaqbalka dalkan waa ubaxi dalkan in caqabad uu kala kulmo ma aha in uu imtixaankiisa iyo mataqaana uu kala kulmo marka annaga waajibkana saaran ka wasaarad ahaan inaan mar walba taxadar ka muujino wacyigelin muujino runtii aad waxaan ugu mahadcelinaa sanad walba ciidamada booliiska iyo ciidamada kale qalabka sida oo runtii si xoog leh uga qayb qaata caawiya ardayda markaan taleefanada u dirno ama meelahay wax ka jiraan na garab istaaga ayagana qaybka imtixaanka laftiisa ama ilaalintiisa ama qaadistiisa ama kawarqabkiisa ay qayb ka yihiin marka waxaan rabaa keliya inaan fariintaada anoo ka faa'iidaysana inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caasimada iyo goboladaba in maalmaha imtixaanaadka in loo naxariisto ardada in la garab istaago in mataqaanaa waxyaalaha ay ku caawin karaan halkan kama sheegi karo ardada wax badan bay u baahan in laga caawiyo inay ku caawiyaan annagana ka wasaarad ahaan
fariintaasaan mar walba sii wadi doona hadduu ilaahay yidhaahdo. waa mahadsan tahay bal adaasiis arrintaas markaad ka hadasho adoo soo koobaya bal ka waran maxaad uga baahan tihiin muwaadinka soomaaliyeed ardaydan imtixaanaadka galaya inuu garabka siiyo ama ciidamada laftirkooda iyo hay-adaha amniga inay kala shaqeeyaan? su'aal mahadsantahay. runtii sida wasiirka uu sheegay waaye waxaa loo baahan yahay wax alla wixii access ee ardaydaas imtixaanka qaab u gaari lahaayeen guriga markay kasoo baxayaan ilaa iyo goobta imtixaanka ilaa hadda ay ka laabanayaan intaas mataqaanaa in loo soo access aan runtii mataqaanaa lagu khasaarin wasaaradda waxbarashada maanta agaasimaha guud waxaan kala hadlaynay ardayda caqabadaas oo wajahaya. for example arday waxaa laga yaabaa inuu ID ka dhumo ama roolna imtixaan galaa ka dhumo بالآدم واي وحي بعد ذلك أنا سيم حال مخنع امتحان كان قفكم قل كده حاسب إن السنة كان إن كور سنتر أصلا موليد وأردنا قرنك أنا قاعد لي رول كاس أيضا فلا بوجب خفكم صح هذا مية أرتي أصلا مسجو إن لو فرض ذين كرر ما تخاننا ولسه حريدا يا إن وزارة جونا ولا شخينا اسم مركز وزارة وخلاص مينا والله بركي هذا فعلا سود قبل مش حنبرنا قبل تحن قلاء فعلا صدق إن سيدو كلا جواب الحكم وحصل على ذلك سلمان كي بركة أنتي حلو بعيا المدة والدك أول والدك إنه جم كنت حنجلا وراح الدياري سوري هو بتخانة يونيفورم كيس لو سي دياري محاها تسبيتيشن كيسي باول كيسي ويحس لو دياري إلا امتحان كوزو قلا إنه أرض لا يحب كل الدار من الديار جروبات وحاصل واجي أنا بتخانة سكول لينا خلينك حتى قادنا يمحوها iyo calculatorkayga inaan suuxiyaan si diyaarsado oo uniformku qofka inuu sii fariisto xataa si interpretation uu ku dhigin waa inaa 1 hour before soo baxda. waa mahadsantaa mudane wasiir imtixaanaadkii iyo kaalimahoodii iyo qaabkay u dhici doonaan iyo diyaar garowga loogu jiro dadaalka in lagu hirgeliyo imtixaanaadkii insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaanteen in si qurux badan uu noogu dhammaado ardayda soomaaliyeed imtixaanka uu fududaado. waxaa intaas dheeraa covid-19 waxaa u xayirnaa goobihii waxbarashada goorma jaamacadaha dib loo furaya iyo goobaha kale waxbarashada dalka. waa su-aal wanaagsan runtii sugaal waxay ku jirtay war-saxaafadeedka wasiirka soo saaray annagoo dabcan la tashaday oo uu maamul goboleedyada bahda waxbarashada insha allahu tacaala agost wixii loo gaaro waxaa dib loo furi doonaa iskuullada kala barka agost jaamacadahana waxay furmi doonaan bilowga sebtembar hadduu ilaahay yidhaahdo macnaheedu yahay annagoo mar walbana ilaalin doona dabcan awaamirtii iyo irshaadaadkii wasaaradda caafimaadka oo ahaa in mar walba la ilaaliyo kala fogaanshaha in maski la qaato in mataqaanaa waxyaalihii kale loo baahnaa oo bakteeriyada la isaga ilaalinayay marka waxbarashada dib ay u bilaaban doontaa. waxaa xusid mudan marka annagoo mar walbana tixgelinayna inaan dib u bilaaban doonaan wasaaradda inay gacanta ku hayso in manhajkii laga soo bilaabo grade 1 ilaa grade 12 inaan rabno inaan u bedelno isagana qaab distance learning ah oo hadda gacanta lagu aan rajeynayna insha allahu tacaala inuu soo gabagaboobo intaan sana dugsiyeedka lagu laaban ama insha allahu tacaala xilliyadaas oo kale oo macnaheeda aan kusii talagelayna haddii xanuunkan ilaahay naga qaadee uu sida hadda aan filayno oo xaaladda uu ku sugan yahay hoos uga sii dhaco ama laga biskoodaba in waxbarashada sideeda ay ku bilaaban doonto. haddii marka uu ka soo daro oo aan aragno xaaladii markay ka soo runaan weydo inaan heli karno qaab kale oo ardayda wax lagu baro taa macnaheedu uu yahay manhajkii oo noo dhammaystiran hadda waxaan rabaa halkan inaan runta ka sheego sanadkan manhajkii waa dhammaystiran yahay laga soo bilaabo fasal 1 ilaa fasalka 10 asagoo hadda noo dhammaystiran oo noo diyaarsan oo ardayda ay heli doonaan hadduu ilaahay yiraahdo yaan waxaan kusii darnay inaan asagina aan ka dhigno digitalization oo distance learning aan ka dhigno oo hadduu ilaahay yiraahdo ardaydan ay heli doonaan manhajkii online system hadduu ilaahay yiraahdo haddii marka uu noo hagaago oo caafimaad ilaahayna siiyo oo xanuunku meesha ka baxo sidaan waxbarashada u wada jirnay sida hadda loogu dhawaaqo u socon doonaa haddii culayska hadda aan rajeynay inuu meesha ka baxo uu nagu soo laabtana waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ardayda ugu baaqo in ay heli doonaan waxbarashada mudane wasiir waxaan rabaa si wada jirna idin siiyo idinkoo soo koobaya waqtigoona kulaalaya awgeed baaqina ku aadan ardayda maamul goboleedyada iyo qof kastoo mas-uul dowladeed ama shacaba kaalintiisa iyo fursadahan uu barnaamijkan ku fududeyn karo iyo dardaaranka u jeedinaysaan idinkoo fursadan ka faa'iideysanaya telefishinka iyo raadiyo muqdisho ka hesheen mudane wasiir soo dhawow. waa mahadsantahay kaliya waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto in aan u duceyno ardayda Soomaaliyeed in imtixaanka Ilaahay u fududeeyo waalidiintana ay kula dardaarmaan ardayda in ay ku kalsoonaadaan naftooda inay ku kalsoonaadaan waxay soo barteen inay ku kalsoonaadaan bahdooda waxbarashada inay ku kalsoonaadaan nidaamka imtixaanada dalka uu leeyahay
sidaa isi lamid waxaan rabaa qof walba Soomaaliyeed oo muwaadina hadduu joogo caasimadii hadduu joogo dowlad goboleedyadaba in ardada lagu mataqaana caawiyo sida ay waajibaadkoodaas imtixaan u gudan lahaayeen iyo wixii mataqaana kala xiriira ugu dambeyn waxaan rabaa in insha Allah taala imtixaanka ardayda Ilaahay u fududeeyo in Ilaahay ka baryana subhanahu wa ta'ala in xanuunkan aafada oo runta adduunka saameyn Ilaahay naga qaado insha Allah taala waxaan u rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed inay guuleystaan meel kasta ay joogaan wixii inta ka dambeeyay insha Allah marba wacyi gelintan waa sii wada doonaa hadii Ilaahay insha Allah taala hay'ad soo waxaan maleynayaa wasiirka dhameeyay kaliya waxaan ku daro ka arday ahaan ardayda Soomaaliyeed waxa leeyahay ma isku kalsoonaataan oo in runtii habeenkii inta soo kacaan akhrisaan maalinkii dadaashaan adinkoona ka fikireen waxba qashi doontaan qasha leeyahay doon adoo ka fikireen waxaas qalbiga gashaneen moogaa soo kala baxsid oo akhrisatid nafsameysatid adoo isku kalsoon qalinka watan imtixaan soo gashid kalsoonidaasna ay ku gaarsiiso mataqaanaa wax akan sida loo dhibaa inaad u leedahay oo aad iska loo fikirin marka taas oo inta daarma in isku kalsoonaano waxana akhrinta taas oo إن شاء الله تعالى أنا أقول محمد بلن قادينا إن أن هاد بوحي قصو كرده جدول كقادست امتحانات كدولة أن هاد برنامج كيب ورك يجوا أن يدين جوكتين دون هدي أتين أرضية الصوماليات يوالدين تلصق عنية امتحانات كهاد بهالك وصومريو إن شاء الله تعالى يفربها وعي قلينات أما أوجيسيس يا أي وسائل waxbarashada oo imtixaanka gacanta ku haysa ay bixin doonto barnaamijkana intaas ayaan ku soo gabagabeynaya daawadayaal iyo dhageystayaal raadraac tan inta barnaamijkan la mid ku kulmin doono wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri oo barnaamijka nagala qayb galay iyo Cabdicasiis oo xogayaha ururka ardayda qaranka Soomaaliyeed waa kaga mahad celinaya fursadan ay nagala soo qayb galeen dhamaanteena isku duubantan inta barnaamijkan la mid ku kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo